halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah gudoomiyaha aqalka sare oo ku baaqay in mar kale dib loo dooran madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay xilligan inuu dalku u baahan yahay isbedel degdeg ah guddiga qaban qaabilaha doorashada madaxweynaha oo maanta ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ururka al-shabaab oo soo bandhigay muuqaalo iyo sawirro muujinaya in ay burbur xoogan u geysteen askartii ciidamada AMISOM ee ku sugnaa deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe dowladda dalka Burundi oo shaaca ka qaaday in khasaarihii ugu xoogan uu ka soo gaaray weerarkaas eedeymo kulul la jeedisay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay inuu soo saarayo go'aan ku saabsan xildhibaanada laga soo kala doortay Ceel Waaq iyo Garbahare waxaan daawadayaal hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato ha moogaana subscribe saarato YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlaya marxaladda uu dalku ku jiro ayaa ku baaqay isbedel degdeg ah Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare waxa uu sheegay in Soomaaliya ay marayso marxalad xasaasi ah loona baahan yahay in isbedel degdeg ah uu ku yimaado hoggaanka dalka si loo badbaadiyo waxa uu sheegay in dadaal xoogan ay gali doonaan in dalka ay u dooraan madaxweyne samata bixiya meeshana ka saara in dowladnimada Soomaaliya dib u dhacyo kale ay ku yimaadaan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in Soomaaliya xilligan ay u baahan tahay shakhsi dulqaad badan isku hay kara dib u heshiisiin u sameeya dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in muddo badan kadib Soomaaliya ay wali meesheedii taagan tahay loona baahan yahay in isbedelku uu ka yimaado xildhibaanada oo ay doortaan shakhsi wax ku ool oo dalka samata bixin kara gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay u guntadaan dawlad dhiska iyo in Soomaaliya ay ka saaraan xasilooni darada baan ee muddada soo jiitamaysay Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu sheegay in tan iyo markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo aasaasay magaalada Caarta ee wadanka Jabuuti ay u muuqato Soomaaliya in isbedel waaweyn aysan ka dhicin marka loo eego dhinacyada horumarka iyo dib u heshiisiinta balse waxa uu ku rajo yahay in sanadkan la dooran doono shakhsigii Soomaaliya ka saari lahaa dhibaatada ay ku jirto asagoo meesha ka saaray in wax raja iyo caaqiba uu leeyahay mar kale madaxweyne Farmaajo oo 5 sano la soo dhaafay ku fashilmay inuu dalka doorasho ka qabto sidoo kale tan ay Soomaaliya uu ku hogaamiyo wadada horumarka la sheegay inuu ku fashilmay maadaama dhinacyada kala duwan ee mucaaradsan ay eedayn ugu jeediyeen inuu doonayo inuu xukunka awood military ku qabsado asagoo aan ahayn tabar uu ku meel mariyo baarlamaanka labada aqal ee dalka ayaa maanta magacaabay guddiga qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la filayo inay qabsoonto 15 bishan aynu ku guda jirno guddiga ayaa lagu saleeyay habka awood qaybsiga ee 4.5 iyadoo ay iska soo dhex dooranayeen beel walba xildhibaanada ka soo jeeda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya gudiyada ay magacaabeen ee ku saabsan qabanqaabada doorashada madaxweynaha waxa ku jira shakhsiyaad caan ka ah Soomaaliya kuwaas oo la filayo inay majaraha u qabtaan hogaaminta arrimaha doorashooyinka madaxweynaha Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ah aqalka sare ee dalka ayaa kamid ah shakhsiyaadka caanka ee kamidka iyo sidoo kale Maxamed Ibraahim Macalimow oo dhamaantood dadku ay u arkaan inay qayb lixaad ka qaadan karaan dadajinta iyo hagaajinta habka ay ku dhacayso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xogayntoodu waxay sheegeen in dalku uu ku jiro xaalad adag oo loo baahan yahay in la dadajiyo meeshana laga saaro in wax walba oo ku saabsan dib u dhac dabeeta aysan dhicin gudoomiyaha aqalka sare iyo midka aqalka hoose waxay kula dardaarmeen xubnaha guddiga inay degdeg u guda galaan shaqadooda oo ay soo saaraan waqtiga iyo jadwalka ay ku qabanayaan doorashada madaxtinimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
Soomaaliya oo sanooyinkii ugu dambeysay la daalaa-dhacaysa marxaladaha kala guurka ayaa u muuqata iminka inay ka harsan tahay oo kaliya in madaxweyne la doorto taas oo dadka Soomaaliyeed ay u heli doonaan waqti in dowladnimada Soomaaliya ay horay u dhaqaaqdo. Tilaabadan sidoo kale waxaa la sheegay in ay meesha ka saari doonto wax walba oo ku saabsan in dowladnimada Soomaaliya ay noqoto mid sababi karta mar kale dib u dhacyo inay ku yimaadaan doorashooyinka. Kooxda ka dagaalanta Soomaaliya ee Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay burbur iyo khasaaro xooggan oo ay gaarsiisay ciidamada dalka Burundi ee ka dagaalama Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya jab xooggan oo ciidanka ADMIS qaybtooda Burundi ee fadhigoodu yahay deegaanka Ceel Baraf ay u geysteen kadib weerar culus oo ay ku qaadeen waa barigii horeete ee shalay. Sidoo kale hoggaanka sare ee Al-Shabaab ayaa dadka ku nool Ceel Baraf iyo hareerihiisa waxay ku fasaxeen inay qaataan agabkii yaalla xerada oo ay kala wareegeen ciidamada Burundi. waa barigii horeete talaadadii shalay ayay kooxdaani jaha kaseete kasoo weerartay xero weyn oo ciidamada ADMIS ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. intii la dilay maahan askartii kale ee ku sugnayd xerada ayaa u baxsaday dhulka hawdka waxaana la sheegay in halkaasi firxadkoodu ay dadka baadiyaha magansadeen. durbadiiba shacabku waxay bilaabeen inay fuqsadaan guryihii ciidanka u dhex yaalay xerada iyo sidoo kale agabyadii kale ee ay ka carareen ciidamada ADMIS. kooxda Al-Shabaab waxay soo bandhigtay meydadka iyo jabka xooggan ee ciidamada ADMIS ka gaaray weerarkaas iyadoo sheegtay Al-Shabaab in guulo wax ku ool ay ka soo hoysay weerarka ay ku qaaday ciidamada ADMIS ee ku sugnaa deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Al-Shabaab waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen kontameeyo ka tirsan ciidamada dalka Burundi inkastoo dowladda Burundi ay arrintaasi iska war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Burundi dhankeeda waxay ku sheegtay in weerarkaasi lagu qaaday xerada ay ku lahayd deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay 30 askari oo ka tirsan ciidamadeeda halka 22 kaleetana ay dhaawacyo leeyihiin oo la dabiibayo. ciidamada ADMIS ayaa u diray diyaarado nuuca qumaatiga kaca kadib weerarka subaxnimadii horeete ee shalay waxaana la sheegay inay duqeeyeen meel u dhow Ceel Baraf oo Al-Shabaab ay ku sugnaayeen. wararka ayaa sheegaya in ciidamada ku dhawaad 400 oo dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen saldhigyada kadib markii ay qaraxyo ku burburiyeen difaacyadii halkaas ay ku lahaayeen. dowladda Burundi waxay cambaaraysay weerarkaas waxayna sheegtay inay aarguda doonto oo ay la xisaabtami doonto kooxdii weerarkaasi soo qaaday ee Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee tilaabadan ayaa u muuqatay mid la doonayo in lagu dhabarjabiyo ciidamada ADMIS ee ku sugan deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. warkaad ka daawanayseen Dunida TV waaga intaas sidaas nabadgelyo.